waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu isugu nimaadno maanta furitaanka kalfadhiga labaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani. salaan kadib waxaan u mahadnaqayaa eebe inoo suurtageliyey in kalfadhiga labaad ee golaha dhexe xisbiga wadani inoogu qabsoomo si nabadgelyo ah, degenaansho, farxad iyo raynrayn leh inooguna qabsoomo magaalada Burco maanta oo taariikhdu tahay 28 Sebtembar 2019. waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Khaatumo iyo Cali Baashe oo inagala soo qayb galay shirka. waxaan u mahadnaqayaa qabanqaabiyeyaasha shirkan ee inoogu soo agaasimay sida farshaxanka, quruxda iyo bilicdu ku dheehan tahay. waxaan u mahadnaqayaa madaxda gobolka Togdheer iyo dhammaan marti sharafta. waxaan u mahadnaqayaa guddiga diiwaangelinta ururada iyo axsaabta qaranka. waxaan u mahadnaqayaa axsaabta qaranka ee kulmiye iyo wicid oo iyaguna nagala soo qayb galay munaasabadan. waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka xisbiga iyo dhammaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani. waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Somaliland ee taageerada la garab taagan xisbiga ee dibadda iyo gudahaba jooga. waxaan u mahadnaqayaa qurbajoogii yimi halkan si ay uga qayb galaan shirka golaha dhexe ee aanay u suurtagelin markii dib loo dhigay shirka golaha dhexe. waxaan si gaara u salaamayaa uguna mahadnaqayaa reer Burco. waxaan uga mahadnaqayaa soo dhoweyntii. waxaan doonayay inuu tacriifa inaan ku daro. Burco waa magaaladii aan ka galay mulxamad quraanka. waxaan ka dhigtay dugsiga dhexe, dugsigii dhayga la odhan jiray. mala odayaashu baa garanaya hadda dugsigii dhaygii. aabbahay wuxuu ka tirsanaa booliiska. marar badan baa Burco loo soo bedelay xaafadihii aan deganaa. waxaan ka xasuustaa marar badan waxaanu deganay liinka bilayska. waxaa kaloo deganaan jirnay xaafadda afgooye la odhan jiray, maqaaxidii geesoole agteeda, farmasigii Axmed Salaan agtiisa. marka waxaan tusayaa inaan reer Burco ahay inkastoo Hargeysa ku dhashay. gobolka Togdheer iyo taariikhda Somaliland way isku suntan yihiin. in badanna xirsi baa ka yidhi ku noqon maayo hadda. gobol Togdheer wuxuu ka mid yahay gobollada lafdhabarta u ah taageerada xisbiga wadani. waxaan u ducaynayaa laba ruux oo inagu qaali ahaa oo inaga baxay. mid waa xildhibaan Aareeye, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. midna waa Deeqa Yuusuf oo ahaa khasnajigii UK ee xisbiga. walaalayaal, xaaladda dalkeenna maanta ku jiro waa mid werwer iyo cabsi badan leh. haddaad eegto siyaasadda arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha cadaaladda, arrimaha xuquuqul insaanka iyo madax bannaanida saxaafadda, arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda, waxaa kuu soo baxaya in muddadii xilkani dowladdani haysay aynu hoos u soconno oo aynaan kor u socon. maanta shacbiga Somaliland rajo kama qabaan in mashkiladaha waaweyn ee hor yaalla in madaxweyne Muuse wax ka qabto. taa beddelkeeda dadku waxay ka warwarsan yihiin badbaadada Somaliland iyo waxa ka dhalan kara hoggaaminta madaxweyne Muuse. warwarkaasi iyo cabsidaasi waa kuwa jira. anigu ka baqi maayo cadow dibadda inooga yimaada waxyeeladiisa. anigu ka baqi maayo cadow dibadda inooga yimaada waxyeeladiisa. anigu waxaan arkaa arrimo inagu cusub
oo aynaan ku arki jirin madaxweynayaashii muuse ka horreeyey ee dalkan u kala dambeeyey waxyaabaha maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wada tashi la'aan Somaliland halkan waxay ku soo gaadhay wada tashi waxaan rumaysnahay in Somaliland maanta ka bilaabantay keligii talisnimo ama dictatorship waxaa ka mid ah isu tanaasul iyo dulqaad la'aan madaxweyne muuse siduu sheegay isagu dulqaadka wuxuu u yaqaanaa doqoniimo waxaa ka mid ah isagoo aan wax xurmaasiinin madaxweynuhu madaxda dhaqanka culimada ganacsatada waxgaradka iyo xisaabta qaranka midna waxaa ka mid ah u gurmad la'aanta iyo wax ka qabasho la'aanta colaadaha dalka ka dhacay oo tusaale u soo qaadi karo tii dhumay ka dhacday iyo ceelaf weyn madaxtooyo iyadu hurinaysa colaadaha madaxtooyadu waxay sheegtay reero ka baqaya madaxtooyadu waxay sheegtay reero hub isu urursanaya oo dhowaan isdili doona waan ku darayaa halkaa mid ka ftana nin baa shirki baa la yidhi dabeedna buu ka sameeyey iyo sawaxan agabkii meesha yaallay u jajabiyey dabeedna odaygii beeshaa yidhi waa inta dambe ka badbaadiyey oo isagana inaga saara dabeedna isagoo hawshii dhammaysan baa laga saaray shirki ninkii habeenkiibu gurigiisii tegey dabeedna wuxuu ku bilaabay dagaal iyo jajabin dabeedna waxaa la yidhi war maxaa kugu dhacay dadkii baa ku soo xoomay dabeedna wuxuu yidhi waxaan samaynayaa waxay ka dhinnayd hawshii saakaan islaha qabo waxaan is leeyahay hawsha mujaahidiintu wadaan malaha waxay ka dhinnayd hawshii uu marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal gacmaha ka qabtay labada mujaahid waxaan uga digayaa madaxweynaha dariiqa uu qaaday inuu yahay midaan hore loogu jabay oo aan lagu guulaysan taladaydu maanta waxay tahay inaynu kulligeen isu taagno badbaadinta dalkeenna oo ka fogaanno qabyaaladda oo waxa keliya ee qofku marka uu fashilmo uu gabbood siyaasadeed ka dhigto qoys iyo qabiil uma guulaysan karno laakiin waxaynu u guulaysan karnaa ummad ahaan ayaynu u guulaysan karnaa sidaa daraaddeed halkudhega sanadkan ee shirka waxaa laga dhigay isku haynta dadka iyo dalka waxaana curiyey mujaahid barkad halkaa mujaahidiin baa soo qaaday oo waxaan ku darayaa marka mujaahidiin la soo qaado qoladii SNM baa la xukum ayaa la xusaa laakiin waxaan xusayaa mujaahidiintii dalkan ugu horreysay Somaliland waxay hayeen daraawiishta anigoo ka duulaya wadajirka ummadda waxaan si buuxda u taageerayaa fulinta iyo meelmarinta heshiiskii xukuumadda kulmiye la gashay khaatimo furila'aanta heshiiska khaatimo waa khaatimo ha iska tagto si daawo loogu helo tabashooyinka iyo isu dheelitir la'aanta waacaha qaranka loona abuuro shacbi gacmaha isu haysta qarannimo iyo dawladnimo loo siman yahay oo wada ilaashada waxa waajib ah in wax laga bedelo dastuurka qaranka oo as dermada siyaasadda si dermada loogu wada fadhiisto wax shacbiga kala fogeeya uma baahnin waxa khasaaray noogu filan
kelimadii uu yidhi taliyaha ciidanku ee kaga wada jallaadisay Somalilan ee ahayd kuwa tegayna ha iska tageen kuwa kalena ha ka daba tageen taasina Somalilan la wada leeyahay inoogu dhismayso inoogu sii jiri mayso amniga Somalilan wuu soo wanaagsanaanayay ilaa dib-u-xurashadii Somalilan ee 1991 waxaynu gaadhnay heer dunidu inagu majiirato mustawaha uu gaadhay amniga iyo xasiloonida Somalilan xilka sugidda amnigu wuxuu saaran yahay xukuumadda waxaanay xukuumaddu u adeegsataa sugidda amniga ciidamada kala duwan ee qaranka waxaana inagu waajibaa inaynu gacan buuxda siino marka ay gudanayaan waajibkooda waa in si laga ilaaliyaa in ciidamada loo adeegsado si khaldan ama guracan ama aan sharciga waafaqsanayn arrimaha dhaliya amni darrada waxaa ka mid ah faqriga ama saboolnimada tusaale waxay noogu filan gugii carabeed ama rabiic alcarabi wuxuu ka dhashay inaan isgubay faqri awgeed maanta waxaynu ognahay in saboolnimadu ay gaadhay Somalilan heer aanay weligeed gaadhin nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam isagoo ilaahay baraya wuxuu weydiisay laba arrimood mid wuxuu amni midna wuxuu risqi rabbi ij'al hadha albalad aaminan warzuq ahlahu min ath-thamaraat waxaynu ka warhaynaa heerka dhaqaaluhu iyo sicir bararku maanta marayo waxaynu ognahay in bulshadeena Somalilan maanta hal mar wax ka badan aanay dab shidan waa qaacido caalami ah inay isku xidhan yihiin amni darrada iyo faqriga oo ay mataanan yihiin halbeega lagu qiyaaso faqriga waxa ugu muhiimsan heerka shaqo la'aanta ee dalkaas gaar ahaan heerka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Somalilandna waxay ka mid tahay dalalka shaqo la'aanta ugu badan tahay waana sababta dhalinyaradeenu u taariibto xasiloonida iyo amni darradu waxa weeye arrimaha saboolnimadu qayb bay ka qaadataa ama ka tahay amni darro waxay timaadaa marka nabaddu xumaato amniga in la sugo waxay u baahan tahay in ciidamada loo adeegsado si loo sugo laakiin nabaddu waxay u baahan tahay quluubta dadka oo wada jirta abwaan gaariye allah u naxariistay wuxuu yidhi garlow awr kala guurtay la arkee mar kaleeto inay ood ku kulmaan haddii uur kala guuro sow amuur culus maaha walaalayaal darbada nabaddu waa cadaaladda cadaaladdu waa meesha aynu ugu hoosayno maanta qof kastaana waa ka dheragsan yahay waana markii ugu horreysay taariikhda Somaliland ee nin qareeni intii soo taago saxaafadda oo yidhaahdo mihnadeydii qareennimo waan ka tanaasulay sababtoo ah iyadoon lagu dhaqmin Somaliland sharciga iyo cadaalad darrada awgeed malaataasi waxayna tusaysaa halkii xaaji aadan aqfalo ka yidhi iyaba waa tabaalaha waqtiga tayno aragnaa cadaalad darradu keliya maaha qof maxkamadii xaqiisa ka qaaday cadaalad darrada ugu weyn waa cadaalad darrada wadareed ama bulsho cadaaladda waxa dhaawaca sadbursiga awoodda dhaqaale xileed darajo shaqo fursadaha ganacsi sida taariikhda baraysana nidaamyada ka fogaada cadaaladda ee ku dhaqma sadbursiga waxay dalalkooda u horseedaan burbur ummadeed Soomaaliduna waxay ka tiri rag cadaalad waayaa sidii cawsha kaleeya
nasiib darrooyinka jira waxaa ka mid ah colaado deegaanada qaar ka dhacay amaba maanta ka holcaya xukuumaddu waxay ka guuldarraysatay inay colaadaha damiso waxaa ka mid ahaa dhumay oo aynu ognahay in 100 qof ku dhowaad ku dhinteen oo looga soo gurmaday kililka shanaad waxaynu ognahay in ceelaf weyn digadiisu qiiqayso 4 sannadood xukuumadduna ay u muuqato inay isku eegayso in shacbigaasi isku dhammaado xukuumadda waxaa ka muuqda dadaal la'aan iyo daacad la'aan baa ka muuqata waxay u eg tahay in go'aanka xukuumaddu yahay in colaaduhu sii jiraan sidaa darteed fariinta aan mar kale u dirayo dadka walaalaha ee ku nool deegaanka ceelaf weyn waxa weeye waxaad tihiin dad isku mid ah oo wada dhashay dad aan weligood kala tegayn dad aan weligood kala guurayn waxaad tihiin hal qoys magac wanaagsanna waa leediinoo habar lamaan baad tihiin war wallee maanta dantiinnu kuma jirto colaad wallee dantiinnu waxay ku jirtaa nabad iyo inaad ka fakartaan mustaqbalka carruurtiinna si arrintaasi dhaymo iyo daawo loogu helo waxaan si buuxda u taageerayaa shirka lagaga dhawaaqay magaalada Burco ee gogosha nabadda waxaan soo jeedinayaa in shirka la dedejiyo si kaalin weyn uga qaato deminta colaadda xukuumaddu ku fashilantay dad badan baa tuhunsan in gacmo shisheeye ku jiraan xukuumaddana waxaan uga digayaa inay ka dayso faragelinta shirka nabadeed ee Burco maanta dalkeennu xasilooni darro uma baahna maanta dalkeennu nabadgelyo xumo uma baahna maanta dalkeennu jabhada uma baahna maanta dalkeennu keligii taliyo uma baahna keligii taliyuhu isagaa jabhadaha dhala waxaan ka soo hor jeedaa in dalka ay ka samaysmaan jabhado oo ay ka abuurmaan bari iyo galbeedba odayaashii ergada nabadda u tagay gobolka Sanaag madaxweynuhuna ka warhayay ee la kulmay sarkaalkii ciidanka ka goostay ee Korneyl Caare sidaad la socotaan waxay shacbiga Soomaaliland saxaafadda uga sheegeen inay sidaan nabaddana ay ku furfurayaan miiska madaxweynaha nabaddii weli may gaadhin miiska madaxweynaha waa inay gaadhaa miiska madaxweynaha nabaddaas madaxweynahana waxa laga sugayaa war shacbiga ka farxiya waxa astaan u noqotay xukuumadda kulmiye dhowr isla'aanta iyo ku tumashada xorriyaadka aasaasiga ah sida xorriyadda hadalka iyo saxaafadda oo dhalin kara kacdoon dadweyne dhammaan shuruucdeennu way xaaraantinimaynayaan cabburinta iyo cagajuglaynta xukuumaddu iyadoo baalmaraysa shuruucdaas waxay caadaysatay inay muwaadiniinta iyo saxafiyiinta dareenkooda cabbiraa si joogtaa u xidhxidho 2018 xukuumaddu waxay xidhay 21 saxafi 2019 xukuumaddu waxay xidhay 17 saxafi waxay kaloo xidhay TVU waxay xidhay wargeysiyo waxay xidhay website-yo saxaafadda waxaa iyana looga baahan yahay inay ilaaliyaan anshaxa saxaafadda iyo xuquuqda muwaadinka waxaa sidoo kale la xidhay saraakiil ka tirsan xisbiga oo uu ka mid yahay guddoomiyaha galabka dhallinyarada abwaan baashi iyo macalin cabdilqaadir xildhibaanno ka tirsan golayaasha degmooyinka Garcadag ceelaf weyn gabiile iyo bowrabe waxaa la xidhay abwaanno iyo hawldoor kale
oo cabbiray aragtidooda Somaliland waxay ka dagaalantay cabburin iyo agajuglayn suurtagalna ma noqonayso inaynu cabburin iyo agajuglayn maanta isku xukunno cabburintu waa hab gaboobay oo maanta dunidu ka guurtay wadamada jaarkeena ayaa maanta u socda nidaam furfuran oo dadku aanay ka baqaynin inay ra'yigooda cabbiraan nidaamka madaxweyne muuse waa mid dadka dalka dib u celinaya waxaanu si ula kaca u daciifinaya doodaha siyaasiga ah ee aqoon-yahanka bulshada ama xisbiyada siyaasadda abuuraan iyadoo xukuumaddu maanta dad badan oo muwaadiniina oo aragtidooda siyaasiga cabbira ay u yaqaanaan cadow bay u yaqaaneen waxa ayaan darro kale ah in xukuumaddu maanta iyadoo ku fashilantay inay samayso siyaasad dhaqaale oo horsocod ah inay bilowday faragelinta ganacsiga iyo nidaamka suuqa xorta ah oo dastuurku damaanad qaaday madax bannaanidooda waxaynu maqlaynaa taaha iyo cabashada demi weyday ee ganacsatada waaweyn iyo kuwa yaryarba iyo waayaha ay la nool yihiin ganacsatadu way xukuumaddu xaq ugu leeyihiin inay dhiirigeliyaan una fududeeyaan hawlahooda ganacsi waayo ganacsigu waa shaqo bixiyaha iyo cashuur bixiyaha ugu weyn Somaliland waxaa muuqata in xukuumaddu ganacsiyo jiray sida wakiilada maraakiibta keenista shidaalka iyo kuwa kale oo badanba ay culays joogtaa ku hayso si ay suuqa uga saarto oo iyagu dad gaara oo dana gaara ka leeyihiin u siiyaan fursadahaas ganacsi haddaad maqli jirteen qaraabakiil xukuumadda kulmiye waxay bilowday kooxkiil waxaanay doonaysaa in dhaqaalaha waddanka koox yaroo ka agdhow madaxweynaha loo gacan geliyo arrintaasoo khatar weyn ku ah nidaamka ganacsiga suuqa xorta ah dhaqaalaha waddanka shaqo abuurka iyo amniga taas waxaa dheer in maalin kasta cashuuro aan loo jidaynin si sharci ah lagu soo rogo ganacsatada yaryar oo qayb ka ah kobaca dhaqaalaha maanta meheradaha yaryar ee la furo waxa ka badan kuwa xidhma siduu ilaahay khayr ha siiyee sheekh aadan siiro ummadda ugu soo bandhigay siyaasad xumada xukuumadda muuse ee maanta ka muuqata arrimaheena gudaha waa mid saamayn taban oo toosa ku leh siyaasadeenna arrimaha dibadda siyaasadda arrimo dibadeed oo guulaysan karta waxaa saldhig looga dhigaa siyaasad arrimo gudeed oo hufan taas ayaana sabab u ah in siyaasadda ictiraaf raadinta ee xukuumaddani ay dhaafi weydo booqashooyin iyo safarro indhasarcaad ah oo kharash badan ku baxo oo aan lahayn habraac iyo istaraatiijiyad midna taana ayaa sabab u ah inaynu yeelan kari weyno siyaasadaynu ku wajahno wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo aynu maalin idhaahno diyaar baanu nahay inaan la hadallo subaxa ku xigana idhaahno waanu ka noqonnay subaxa saddexaadna idhaahno waanu ku noqonnay waa igama qurunto oo igama gubato siyaasadda waddani waa in adduunka tusno inaan nahay qaran dhisan oo dhexdiisa yaallaan cadaalad iyo wada lahaansho haddii ay helaan aqoonsi aan geeska Afrika ku soo kordhinaynin nacayb ee noqonaya qaran mas'uul ah oo diyaar u ah waxa la qabsiga shucuubta geeska Afrika dugsiyada gaarka ah ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay qayb muhiim ah ka qaataan horumarka dalka ee waxbarasho waa shaqo abuure waana cashuur bixiye qodobka 15 ee dastuurka ayaa jidaynaya in la abuuri karo dugsiyo iyo barnaamijyo waxbarasho dugsiyada dawladdu kaligood kuma fulla inay daboolaan baahida waxbarasho ee dalka anigu barigaan ardayga ahaa dugsiyo
gaari ma jirin laakiin waxa keenay maanta baahi in la abuuro dugsiyada gaarka ah ardayda dhigta dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarka ah waxay leeyihiin manhaj isku mid ah manhajka Soomaaliland waxa laga qaadaa imtixaan isku mid ah ardayda ka soo baxdana dhammaantood waa arday reer Soomaaliland ah fool xumo weyn bayahay in deeqdii waxbarasho ee dalka Itoobiya nasiisay ee dhammayda 450 jago laga qadiyo ardayda ka soo baxday dugsiyada gaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland falkaas wuxuu cadaalad darro weyn oo saameyn taban ku yeelanaysa in ka badan 100,000 oo arday xisbi ahaan waxaan soo jeedinaynaa in xukuumaddu go'aankaas dib uga noqoto golayaasha sharci dejintuna doorkooda ka qaataan xallinta khilaafka sharci labada xisbi mucaarad ee u cudiya wadani waxay shacbiga u cadeeyeen inay diyaar u yihiin doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo isku sidkan oo aan la kala reebin inay dalka ka qabsoomaan rabadaanta ka hor ama bisha afraad 2020 beesha caalamku waxay diyaar inoola tahay taakula dhaqaale iyo mid farsamaba commission doorasho oo cusubna waa la dhisayaa bisha Oktoobar kaasoo ahaa dalabkii ugu muhiimsanaa ee xisbiga wadani dhamaystirka qabyooyinka doorashada iyo xilka qabashada doorashadu waxay saaran yihiin madaxweynaha shacbiga waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan doorashada musharaxiintiisu sharaxaysay baarlamaanka iyo deegaankuna inay diyaar garoobaan xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay shacbiga u soo bandhigto qorshaha qabashada doorashooyinka iyada oo intii aan soo sheegay ee warwar iyo cabsihii jirtaba iyo inaanan soo sheeginiba waxaan shacbiga reer Soomaaliland dhawaaq dheer ugu baaqayaa inaanay niyad jabin falaa taqnatuu min raxmatillaah balse inay wada jirkooda iyo ummadnimadooda ilaashadaan oo gacmaha isqabsadaan waxaan ku soo gunaanadaya hadalkayga maanta inaan shacbiga reer Soomaaliland u sheego in go'aankaygu yahay anigoo muwaadin ah iyo anigoo gudoomiyay xisbiga wadaniga inaan waqtigayga ugu badan gelin doono midaynta dadka iyo dalka Soomaaliland waxaan ku celinayaa halkudhagii hore lagu soo celceliyay oo mala barxad ugu badnaa ku celcelintooda muuse wuu tagayaa ayaa la kala tegin